gabdhaha waxaan leeyahay cadow baa idin soo baxay ilaahay aan ka baqahayn korka bani aadam buu ka yahay laakiin dabeecad dugaag buu leeyahay waa wiilka ku dhiiranaya inuu inanimadaada ku ciyaaro marka uu yeelatidna ka dhaqaaqo ku yaado kuma aqaan wiilka ku dhiiranaya inuu xashiish ku cabsiyo ku baro ku dhiiranaya inuu cirbado darooga kugu duro ku dhiiranaya saaxiibo kale inuu kugu siixiro oo xunxun ka ilaaliya moobiladiina inaad kala xiriirtaan ka ilaaliya inaad waxaas xun daawataan ilaahay ka baqa gabdhow oo xijaabkiina qaata oo adkaarta akhrista oo salaadaha ilaahay tukada oo guryihiina ku ekaada ilaahay wuxuu ku tilmaamay gabdhaha mu'minaadka ah oo ahlu khayrka ah waqarna fi buyutikun guryahooda ku nagaadi wala tabarrajna tabarruj aljaahiliyati alula sida u dhaqminina ha u soo banbixinina sida gabdhihii jaahiliyaadku ay ahaayeen intay soo labisato wax walba soo marsatay yaacayaan dariiqa markaasay waxa weeyaan fasaadka halkaa ka yimaada cibrab xumadiisa idinkay salka idin dhigaysa adoo xishoonahayo ilaahay ka baqahaya guur xalaal ah ilaahay waa kuu sahlaya subxaanahu wa tacaala yaan lagu sirin yaan lagu khiyaanin talada iyo wixii kugu soo kordha hooyada iyo aabbaha oo ku soo koriyay la wadaag wiil meeshaas aad iska aragteen oo aan ku soo korin oo aan xuquuq kugu lahayn yuuna been ku sheegin nin ajnabiya gacantiina ha ku salaaminina nin ajnabiya dariiqa ha la fariisanina nin ajnabiya sawir ha la gelinina wuxuu rabaa inuu gacanta hal mar idinku dhigo gabdhow baraaruga cadow baa idiin soo baxay gaaladii waa idin fitnaynaysaa dad ay ku adeeganaysaa ayayna leedahay xishoodkiinna iyo akhlaaqdiinna soo ceshada ilaahayna ha idin xifdiyo ilaahay ha idin xifdiyo ilaahay gabdhaha inoo hanuuniyo